duudsii karaaye cadaawuhu dalkeenna ma duudsii karaaye diriir ku raadinayo nabad ku dhaqnayaaba diriir ku raadinayo nabad ku dhaqnayaaba hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin dunida hoosu eego ninkaan xaqiisa doonan dacar ma gaabiyo wallaahi waa ka duufe dacar ma gaabiyo wallaahi waa ka duufe hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin
dirir ku raadinayo nabad ku taqnayaaba hadugsanina xoogo wax dinta dhaawacaya jannad dagatay maante yaan loo kala dambayn hadugsanina xoogo wax dinta dhaawacaya sanina xoogo wax dinta dhaawacaya wasiiro xildhibaano maamul ka socday gobolka Shabeellada Hoose iyo midka Koonfur Galbeed ayaa wadajir u tagay deegaanada Sabiid iyo Caanoole oo bishii hore laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. deegaankan oo ay xaalado nololeed ka jireen ayaa la geeyay gargaar isugu jira raashin kala duwan iyo daawooyin si dadka shacabka ay u helaan nolol ka wanaagsan midii ay ku sugnaayeen markii Al-Shabaab gumaadayeen. raashinkan waxaa qaybiyay ciidamada xoogga dalka mas'uuliyiin uu horkacayo wasiirka gaashaandhigga ayaana kormeerayay sida xaaladu tahay. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee ka soo jeeda gobolka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka caafimaadka xildhibaan Maxamed Saciid ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saari doonto soo celinta adeegii dowladeed iyo kaabayaasha nolosha deegaanka Sabiid iyo Caanoole. aniga magaciina inaan oga mahad celiyo dowladda oo horeyna u soo booqday halkan madaxweyne Farmaajo ayaan maantana waxaan rabaa inay arkaan dadkan ee Soomaali aan u sheegnay inay abaartii 49kii meeshii Soomaali oo dhan wax looga qeybay iyo cuntada ee ayada u gurmatay inay deegaankan ahaayeen. maanta inay dadkan ay dhibaatoodaan oo ay wax soo saarkoodii ay ka gaajoodaan ayaga ay noqdaan dad runtii la ildaran u baahdaan gargaar ilaahay xaqiisa ay ka ahaatay laakiin waxay maanta diyaar u yihiin hadday dawlad ay heleen inay ayaga iska dahay Soomaali inteeda kale ay quudiyaan sidii lagu bartay. ka wasaaradda caafimaadka maantadan halkaan aan nimid waxaan naga go'an ballan ah sidaan hadda daawo aan u keennay in hadda wixii ka dambeeya ay idinka warhayno MCH-yadiina la furo isbitaaladii dawladda federaalka ay lahayd la soo celiyo dawladnimada meel kale aad ka raadinaysaan maahan maanta idinka ayaa dawladnimada na tusay sharafta dawladnimada ay leedahay idinka na tusay marka waxaan rajaynaynaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maxad gaar ah leh oo suurtageliyay inaan isu imaano waxa la idinka rabaa ciidamada inaad garab siisaan aad gacan siisaan aad u noqotaan indho idinka aad u noqotaan indho aad tusaalaysaan haddii aadan idinka la shaqaynin ma soconayso hawsha. wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka codsaday shacabka Sabiid iyo Caanoole in ay gacan siiyaan dawladnimada. hal shay aan rabaa in aniga codsado yaa deegaanka laga barakacin meeshiina jooga wixii adeeg aad u baahan tihiin anaga diyaar inaan adeegno deeq anaga ani keen daaweyn anaga ani keen maamul anaga keen dib u soo laakiin inakana dawladnimada hal taageero. sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa sheegay in dawladda ay soo celinayso dhammaan adeegyada ay shacabka u baahan yihiin. waxa uu hoosta ka xariiqay in la xoreyn doono dhammaan deegaanada gobolka Shabeellada Hoose xilli dhow. maanta anaga imaanay berina wasaaradda kala imaanay sida wasiiradii iga hore ay ka dhawaajiyeen meel kasto ay dawladda ay tagto in lagu soo celiyo kaabayaashii dawladda in la soo celiyo iskuuladii in la soo celiyo caafimaadkii in la soo celiyo bilicdii magaaladan waxaa la samayn doonaa sida magaalooyinka kale oo kale waxaa la samayn doonaa cadceed ku shaqaysa ii sheeg nal oo cadceedka ku shaqeeya ayaa ii sheeg adiga mustaqbalka hadda dhow ayaa la idinka samayn doonaa meelaha qaar oo wadooyinka waxbaa la idinka qaban doonaa
runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay anigoo ka wakiila madaxweynaha mar labaad jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha iyo ku hadlaya magaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ii sheeg idinkaga mahad celinaynaa in aad raalli ka noqoteen inaad la dagaalantaan cadowga inaad soo baxdaan ee dawladdiina taageertaan shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago ama aan ka codsado inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay garab istaagaan wasiirada iyo xildhibaanada uu hogaaminayay wasiirka difaaca ayaa kormeerayay deegaanada qaybihiisa warbixinno amniga ku aadan ayay ka qaateen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ururka 13-aad ee guutada 14 Oktoobar kuwaas oo gacanta ku haya amniga iyo xasiloonida Sabiid iyo Caanoole.